ay baahiyeen warbaahinta caalamka waxaa ciidamada cirka ee dalka Pakistan ay maanta oo Arbaca ay soo rideen laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka dalka Hindiya kuwaas oo duqeyn ka waday xadka labada wadan gaar ahaan dhanka Pakistan. Afyaan u hadlay ciidamada militariga ee dalka Pakistan oo lagu magacaabo Sareeyagaas Asif Ghafoor ayaa sheegay inay soo rideen laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka dalka Hindiya. Diyaaradahan ayuuna sheegay inay ku soo xadgudbeen hawada Pakistan isla markaasna halkaasi ay duqeyn ka wadeen. Waxa uu afyaanku sheegay in mid ka mid ah diyaaradahan ay ku soo dhacday Kashmir dhinaca Pakistan lana xiray duuriyihii diyaaradda, halka diyaaradda kalena ay ku dhacday dhanka Hindiya ay maamusho. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Hindiya ayaa saacadihii la soo dhaafay duqeymo ka furiyay gudaha dalka Pakistan, gaar ahaan dhinaca xadka Kashmir, waxaana Hindiya ay sheegtay inay beegsatay goobo ay joogaan kooxda la yiraahdo Jayshul Mohammed. Dowladda Pakistan ayaa hore ugu hanjabtay inay jawaab kul ka bixin doonto duqeymaha ay diyaaradaha dagaalka dalka Hindiya ay ka fulinayaan gudaha dalkeeda, waxayna Pakistan ku eedeysay Hindiya in ay wado daandaansi dagaal. Xiisadda labada wadan u dhaxaysa ayaa cirka gashay kadib markii kooxda la yiraahdo Jayshul Mohammed oo ay fariisin ku leh dalka Pakistan ay weerar ismidaamina oo ka dhacay gobolka Kashmir ay ku dileen in ka badan 40 askari oo ka tirsan ciidamada Hindiya. Taariikhiyan Hindiya iyo Pakistan waxa ay sheegtaan in ay leeyihiin gobolka Kashmir ee ay muslimiintu aqlabiyadda ku yihiin mid kastana ay taariikhiyan Hindiya iyo Pakistan waxa ay sheegtaan in ay leeyihiin gobolka la yiraahdo Kashmir ee muslimiintu aqlabiyadda ku tahay. Labada dal ayaa 3 jeer dagaalamay tan iyo markii ay xornimada ka qaateen dalka Britain sanadii 1947.